سؤال أيام ربنا حلقات ودي ويلش يا الله لا يوحي سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. واذكر حس نبي الله أوشاك إذ وقت قال إبراهيم لأبيه نبي إبراهيم أبيه وكيري آزرها وكيري أتتخذ مياد يلنيسا موحد يلنيسا أصناما صنبو آلهة إلهي مياد يلنيسا إني أنيقو أراك وانكو أركا وقومك أذيك يددك أقبا في ضلال بادئين الكسبنتهين بادئ صومبين عد وإن إذا الدين هيسان أو ودخل دن الهيسان أيام كوشي يا آب أذيك يتركا هلكم وحين نكبر أبنا قصة النبي إبراهيم قيبة كمدة sida Allah socotaana qaybo fara badan oo kamid ah waynu soo baranay oo dhinacyo badan taabanaysa laakiin waxaan rabaa su'aal inaan xalaqaadku weydiiyo wiilashiya hablaha nabi Ibrahim muxuu caan ku yahay waxaa la rabaa qofkii markuu ka jawaabay gacanta inuu taago haye cadlad tawxiidka ma sha Allah sida uu Cabdullaahi mawlid sheegay nabi Ibrahim wuxuu astaan u yahay astaan tawxiidka inuu bayaamiyo sidaas daraadeed baa waxaa la yiraahdaa tawxiidka aabihi abu tawxiid baa la yiraahdaa tawxiidka آبيه والنبي والبابا توحيد كوا بيامي لكن السوءات بوسعين توحيد كوعين وحو الله لآبيه مقعي سوحا ليرادا آزر صدا القرآن كلنا الشارع وحا ليروحو لها نانيس هي مقعبو لها مقعي سو القرآن قالوا الشارع نانستي سنة تاريخ باللورج تاريخ باللورج حابة أقول مثل وحوها نقالة وقالة دي مركز شوفتي هو وينين وحونا كشقين تري أصنامتا أيو كشقين تري oo ka baayac mushtari oo dadka maaragtay uu ku dhiirigelin oo ka shaqeyn wallahi wuxuu ku yiri si degan intuu la hadlay aabe ma waxaad yeelanaysaa asnaaman aaliha adiga iyo dadkaaguba waa lunteen وإذ قال إبراهيم واذكر حس إذ قال إبراهيم لأبيه إبراهيم وأبيه كيل آزر أتتخذ موحد يرنس أصنام آلهة الملك يرنس أصنام هو مفعولك والآلهة هو مفعولك لبعضه اتخذ إني أراك وأنكرك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك الصراع كما أريناك الهداية يا محمد صلى الله عليه وسلم سيدا نهانوك كوت سنين بان نريء تسنينا إبراهيم نوحن تسنينا ملكوت السماوات والأرض سموينك يقرلك
milkigooda iyo waxa ku dhex jira oo ku dhex maqan ayaanu tusnay oo daaha uga qaadnay waxa samooyinka iyo dhulalka jira ayaanu nebi ibraahim daaha uga qaadnay tusnay sidaan adigaba ku tusnay waliyakuuna iyo si uu u ahaado min almuuqiniina kuwa yaqiinsada oo ilaahay jiritaankiisa iyo tawxiidka si fiican qalbigiisa ay uga dhaadhacdo nebi ibraahim ilaahay wuxuu tusay sida uu nebi maxamed u tusay calayhi salaatu wasalaam malakuuta asamaawaati waalard samooyinka milkigooda iyo dhulalka ayuu tusay maxaa looga jeeda waxay yidhahdeen laba tafsiir baa ku jira culimmadu waxaa suuragal ah in laga wado samooyinka iyo dhulalka waxa ku jiro oo dhan baa indhaha loo saaray indhahaaba loo saaray ilaa nebiga waxyaala qaybaa ilaahay baraa mogti qalbigusuna wax badan buu qaadayaa ilaahay buu aada u yaqaanaa markas malakuuta samaawaati 7 cir iyo 7 dhul baaba la tusayba markaasuu iska daadaawado sidii wax hortiisa yaallo oo kale qaybaana waxay yidhaahdeen xataa carshiguuba iska daawanay isagoo dhulkiisa jooga ayaa carshiga la tusay si bayaana waa suuragal waxay kaloo culimmadu yidhaahdeen maya waxaa looga jeedaa waa xagga basiirada oo yacni qalbigiisa iyo maaragtay baa waxaa laga buuxiyey inuu daawanayo oo dhuuxayo aayadaha ilaahay ee waaweyn oo maalan inagu halkan joogno qofku isagoo halkan jooga ayuu wuxuu dhuuxayaa dhul cirka iyo sida ilaahay waxa u abuuray